وقاك داود ويالكان نقل سعتان وحرونتا تيفيغا يونيفرسال وكولي هاي مقالة هرقيساها وركي عالم كاستو سان ديغا سو قد بنينو مدعونا هيرشاب الله يا وحا ومانتا حرقا كتري برنامج ستو سا ايقو ودا حريري كران حفي سدا دولة فدرالكا يوليبا كوا دولة قبليدكا هيرشاب الله وريا يقا إبراهيم علي نور يا فافاين توركني وحا وكسو دري جوهر مدحوينها مامولka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta si rasmi ah u daafuray mashruuca ICT program oo ah barnaamij live stream ah oo si toos ugu xiraya xafiisyada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Hirshabelle. Xarika jirka mashruucan waxa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, qaar ka mid ah labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tijaabadii ugu horeysay barnaamijkan waxa si toos u wada xiriiray xafiisyada magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ee dawlad goboleedka Hirshabelle. Waxa ugu horeen warbaahinta la hadlay mareeyaha mashruuca ICT project program Cabdisalaam Shariif Xuseen. kan wuxuu ku saabsanaa communication room kaanad aragtaan oo Hirshabelle laga hirgeliyay saddex kamida hal Beledweyne iyo laba halkaan oo State House iyo baarlamaanka 730 bigaaraan intaasna badankoodu madaxweynuhu isagoo ogaa annagu halkii ka sii ambaqaadnay maantana waxay maraysaa gabagabo waxa laakiin soo socda oo annagoo dhan inaan u diyaar garowna ay tahay madaxweynuhuna runtii si gaar ah nagala shaqayn doona iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada wajiga saddexaad oo runtii geeska Afrika oo dhan la rabo in laga hirgeliyo. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid waxtar u leh dawlad goboleedka Hirshabelle. runtii wasiir canshuur iyo maxaa Cabdisalaam shaqo fiican ay arintaas ay ka qabteen inaan qaybteedii ka qaadano anaguna diyaar aan u nahay mudane maarey soo dhawow barnaamijkaanuna sidaas oo maxaa noogu furan yahay wixii maanta ka dambeeyay live streaming maxaa ay ka qayb qaadanaysaa arinta ugu dambeeyay oo ku soo gabagabeynaa waxa waaye si dadku ay u arkaan in siyaasaddu ay furan tahay waxaa suurtagal noqon doonta in kal fadhiyada baarlamaanka live streaming saas looga fiirsado oo dadka danayna oo Hirshabelle degmooyinka kaleeto laga soo bilaabo Beledweyne ilaa Balcad inay live stream ay fiirsan karaan muxuu ahay baarlamaanka doodihiisa waxaa suurtagal inay su'aalo muxuu ahay ay soo jeedsan karaan baarlamaanka hadda dhismihiisa insha Allah taala aan rajaynayno inuu bilowno markay soo idlaatay xafladda daafurka barnaamijka waxa warbaahinta si gaar ah ula hadlay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta maamulka Hirshabelle Cabdiweli Sheekh Cali Cumar waxaan launch gareynay programkii ama mashruucii ICT project ee aan partner ka ahayn World Bank iyo shaqadana nala wada wasaaraddii boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada heer federaal mashruucaas oo ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno golaha wasiirada conference room kooda iyo baarlamaanka xaruntooda dhexe iyo state-ka goboladiisa qayb kamid ah sida gobolka shaariicdan in muddo aan daba soconay ilaa dhowr bilood marka waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysan doono reer Hirshabelle ay baahi badan u qabaan teknolojiyada cusub dhanka teknolojiyada cusub oo aad u moodo in macnaha adduunka dhamaa laga gudbay telefoonadii iyo qaabkii in macnaha live stream shirku u dhaco la isugu yimaado lagu kala akhbaar qaato barnaamijkan sahlaya in si toos ah u wada xiriiraan xafiisyada dawlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya waxa maalgeliyay bangiga adduunka Ibrahim Ali Noor TV-ga Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Caabud Waaq ayaa waxa uu qarka u saaran yahay